waxaan rabaa inaan idinla wadaago qeyb yar oo khusayso Google AdSense-gaaga iyo haddii YouTube-kaaga dakhligiisa uu yaraado. Tusaale ahaan, waxaa yaraaday YouTube-kayga dakhligiisa, sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan dakhliga YouTube-kayga kordhiyo. Maxaan sameynayaa? Dakhliga YouTube-kayga markuu yaraado waxaan sameyn kartaa furuudahan soo socda. Waxaa ku dhufanaysaa meeshaas ay ku qoran tahay af Soomaali ahaan dhibaatayn oo xalli arrimaha caadiga ah. Kabacdi qodobo badan ayaa meeshan kugu yaallo. Qodobka ugu hore waxaa waaye dhibaatayn arjiga codsiga, arrimaha soo gelidda, bedel magaca lacagta qaata, joojinta akoonka. Waa markii akoonkaaga lagaa joojiyo, waxaad sameynaysaa magaca ayaad ka bedelaysaa akoonkaaga, kabacdi ayaad dib u codsanaysaa joojinta akoonka. Kasoo qad akoonkaaga la jabsaday. Mar haddii akoonkaaga la jabsado, waxaad suubin kartaa in aad si dhaqso leh u imaatid Google AdSense, kabacdina aad joojisid lacagtii ama akoonkaaga dhanba, si qofkaasna uusan usi isticmaalin intaad hal waaro ka helaysid. Arrimaha bixinta, ciwaanka xaqiijinta dhibaatada PIN. Waa marka lagu soo diro PIN-ka ama uu qaadaho ayaa waxaa codsanaysaa ciwaanka xaqiijinta dhibaatada PIN-ka. Muxuu akoonkaygu u leeyahay lacag bixinta? Wareejinta lacagaha elektarooniga ah ee EFT. Sida loo codsado dib u hubinta markay wax kaa qaldamaan, halkaas ayaad ayadana laga doortaa. Laakiin muhiimadda aan usoo socdo ugu dambeysaa waana kuu sharxi doonaa insha Allah. Lacag dhaqaalaha ee Western Union. Wareejinta right rebate oo ku celin ah. Uma arki karo AdSense xayeysiiska. Isku xirka koontada AdSense ee laguka. Warbixinta waxqabadka, dhibaatooyinka hoos u dhaca ku soo gala dakhliga. Waa taan marka meesha aan rabo dad badan ay ka cawaadaan. Asxaabay, markii YouTube-kaaga lacag uu kuu shaqeyn jiray fiican, tusaale ahaan $300, $400, $500 ay jirtay, maantaba waxaa dhacay in lacagtaadii ay hooseyso oo waxaad qaadan jirtay wax ka yar ay kuu soo bishaan. Maxaan suubaynaa? Waxaa imaanaysaa Google AdSense, kabacdini meeshan 3 far ah ayaa kusoo dhufanaysaa. Markaan kusoo dhufto, waxaa imaan doontaa meesha ugu hooseyso ee ah faaqda waxyaabaha dib u dhaca iyo basic AdSense ugu dambeyn doono. Kabacdi waxaa ka dooranaysaa lambar 4, dhibaatayn hoos u dhac ku soo gala dakhliga. Waa ku dhuftay. Wuxuu nageynayaa halkaas ayuu nageynayaa. Kabacdi waxaan leeyahay my city, wadanka aad joogto ayaa dooranaysaa. Kabacdina waxaad raadinaysaa Google AdSense-gaaga akoonkiisa dhexdiisa. waxaad raadin doontaa BRM ayaa yaraaday. Halkaas markaa ku dhufatid, waxaad arki doontaa meesha dakhliga. Meeshaan ayay ku dhigtahay. Halkaas ayaad waxaa ku suubinaysaa check-up. Waa intaas. ujeedin ayaan jeclahay. Waa masti markaad isticmaalaysid YouTube channel in aad ka wareyso dhaqdhaqaaqa
meeshaan.